بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. kusoo dhawaada solo vlog iyo travelka ama safarada kala duwan. waxaan idinkala soo hadlayaa maanta oo axad ah bisha December ay tahay 15/2019 magaalada caanka ah ee Oxford oo ku taalla waqooyiga galbeed ee magaalada London iyo Oxford waxay isu jiraan 90 kilomitir dhanka waqooyi galbeed. magaaladan waxay adduunka caan uga tahay jaamacadda adduunka ugu weyn, ugu caansan, uguna waxbarashada badan ee University of Oxford. jaamacaddan waxay leedahay 36 college oo ah kuwa number 1 ka ah adduunka dhanka iyo waxbarashada. sanadkan 2019 iyo 2020 number 1 ayay ka yihiin dhanka waxbarashada jaamacadaha dhammaan adduunka lagu daray waddanka Mareykanka. mid ka mid ah waa St. Peter's College oo aad halkan ku aragtaan. runtii jaamacadda ugu horeysa ee college-ka waxaa la aasaasay muddo iminka laga joogo 600 oo sano ka hor. waa 1263 jaamacaddaas college-keeda la yidhaahdo Balliol 1263. tan ugu dambeysana waxaa la aasaasay sanadkan aan ku jirno 2019 dhammaadkiisa, kaasoo la yidhaahdo Parks College la yidhaahdo. Oxford waxay tahay jaamacadda saddexaad ee adduunka ugu weyn. waxaa ka horeeya oo keliya jaamacadda ku taalla waddanka Morocco, magaalada Fes ee magaceeda la yidhaahdo Quefen, iyo waxaa number 2 ah jaamacadda ku taalla magaalada Bologna ee gobolka Emilia Romagna ee waddanka Talyaaniga oo la aasaasay 1088. marka waad fahmi kartaan 600 sano ka hor jaamacad la aasaasay inay tahay jaamacad aad u weyn. marka shanta college ee ugu muhiimsan jaamacaddan Oxford waxay kala yihiin tan la aasaasay 1263 uguna caansan uguna weyn ee magaceeda la yidhaahdo Balliol College. waxaa kaloo ku xiga St. New College, Exeter College, St. John College, Christ Church College. Computer Science haddii aad baranaysid St. Catherine ayaa ugu fiican. dhammaadkii 2016 ayaan dhowr asbuuc ugu qaatay Department of Computer Science oo mar dhow aan eegi doono. magaaladu waa magaalo arday, intaasoo 1000 arday oo ajaanib ah ayaa wax ka barata. waxaa kaloo degaan ay u tahay dad badan oo Ingiriis ah. gobolkana waxaa la yidhaahdaa Oxfordshire. marka maalmaha iska caadiga ah London iyo halkan waxaa loo socdaa, haddii galbeedka laga yimaado waxaa loo socdaa ilaa iyo 1 saac iyo 1 saac bar. laakiin waxay ku xiran tahay magaaladu waa magaalo aad traffic u ayay ku xiran tahay. marka waa magaalo ka duwan magaalooyinka kale. waxaad ku arkaysaa dad ajaanib ah ka yimaaday waddamada Aasiya, waddamada North America, iyo iyadoo magaalada loo yimaado dalxiis aad u fara badan dadku ay u yimaadaan. waa magaalo green ah oo dhirtu aad ugu badan tahay, tagaasidii London oo kalena ay yaalaan. dhankanna waxaa loogu talagalay keliya in ay basaska iyo tagaasida keliya ay maraan. marka waxaad ku arkaysaa luqadda Romanka oo meesha ku qoran. kollejadan 1000 sano ka hor guryo la dhisay ayaad ku arkaysaa magaaladan. tusaale ahaan Faculty of History ayaan ku arkaa meeshan. waxaan ku qoran Dominus Illumino Tio Mea, kaasoo ah logoga ama waxay u isticmaalaan Faculty of History ee isla jaamacaddan Oxford University. marka jaamacaddan 28 qof oo ka qalin jabiyey oo soo dhigtay boqolaalkii sano ee ugu dambeysay ayaa noqday in ay ku guulaystaan Nobel Prize. gabadha ugu caansan waxay ahayd gabadhii Bakistaanta ahayd ee Malala Yousaf, 2014 ku guulaysatay Nobel Peace Prize ku guulaysatay, oo Pakistan qolada Taliban yiraahdo ay xabad ku dhufteen. waxaa kaloo dhowr iyo 20 sano ka hor iyadana ka qaadatay gabadhan kale oo hadda maxkamadda ku saaran Hague ee waddanka Burma, Aung San Suu Kyi la yiraahdo.
iyo dad kale aad u fara badan marka waxay ku jirtaa jaamacadaha ugu muhiimsan adduunka sanad walbana sanadada ugu dambeeyay waxay gashaa number 1 ayay gashaa soo horada kugu sheegay deegaanna waa tahay magaalada Oxford marka kaliya ma ahan magaalo jaamacad ma ahan magaalo deegaan oo runtii dadka ugu yar ee aan ku arkin waa dadka madowga ah Soomaali iska badaa waxa laga yaabaa arday Soomaali ah jaamacad inay ka dhigtaan laakiin weli ma aan arkin insha Allah asbuuca dhalan doona maanta waxada asbuuc soo socdo dhan waxaan ku suganahay magaaladan qaasatan St Catherine College oo department ugu weyn ee computer science laga barto qaasatan specialist waxa lagu sameeyaa algorithm iyo artificial intelligence oo iminka aan ka sameeyay University of London oo college kamida collegeada marka 2016kii ayaa halkan waqti fiican aan ku qaatay computer science department waana magaalo runtii aan marar badan nimid oo waqti fiican aan ku qaatay aad aan u jeclahay marka waad aragtaan wadooyinkii Romanka dhismaha waad arkaysaan sida yihiin iyo sida u kala duwan yihiin waana magaalo ancient ama duug oo qadiimi Oxford marka meel walbana waxa ka socda dhismo wadooyinkan runtii ku arki maysid meel kale waxa lagu arkaa kaliya magaalooyinka Roma iyo Venice ayaa lagu arkaa darbiyada xataa aad eegtid iyo siday u yihiin ma aragtay kuwa ancient ama qadiima waxa kaloo jira in meelo badan ay yihiin modern ama cusub ay yihiin ama cusub yihiin aad ku arkaysid magaalada isla markaana dukaamo iyo shopping mall ay ku jiraan laakiin magaaladan lagu ma yaqaan dukaameys waxa lagu yaqaanaa waxbarasho ayaa lagu yaqaanaa magaaladan income-ka ama lacagta ka soo gasha waxbarashada ardayda waxa lagu qiyaasay billions inay dhaaftay oo aan jirin magaalo Ingiriiska la mid oo intaas oo lacag ay ka soo gasho marka guryahana aad ay qaali u yihiin sababtoo meeshan waa bartamaha magaalada lagana heli maayo meel ardaydu ay maaragtay ay degaan banaanka ay degaan basas ay soo raacaan baaskiil marka meelaha kale Oxford soo horreeyay kugu sheegay waxaad ku arkaysaa dukaamaysiga caadiga ee aan naqaano laakiin dhismo ahaan way ka duwan tahay magaalooyinka kale waxay xogaa aad isugu dhow yihiin Cambridge oo ku taala waqooyiga magaalada London ku taala sida magaalada London ay ajaanibta ugu badan yihiin kumaan arkin ajaanib aad u fara badan inta badan aan imaaday inta badan waxaan ku arkaysaa dadkan ka yimaaday wadamada Aasiya iyo waxaad ku arkaysaa dadka ka yimaada North America jaamacadan sida lagu galana aad ay u adag tahay waa AAA stars waa inaad haysataa oo ahaata qof aad u diyaarsan marka waa aad ay u adag tahay dadka maaragtay iskuulada inner city-ga ka soo baxa inay fursad u helaan in jaamacadan iyo tan Cambridge ay galaan sababtoo waxbarashadiisa waxa laga doonayaa in aad ahaatid intense oo ahaado oo mar walba aad isku diyaarisid adigoo doonaya in imtixaankoodana wax si yar lagu geli kara ma aan runtii oo arkaysa dhismaha gabi ahaan uu kala duwan yahay wadadii markii hore aan ka imaaday ayaa imkan ku laabanaya waxaad ku arkaysaa meeshan waa meesha dadka shaqo la'aanta ay hayso ama shaqada doonaya job center ayaa la yiraahdaa maqaayadaha fara badan ayaa ku yaala marka qaybtan waa qaybtii hore insha Allah laba qaybood oo 10 daqiiqo ayaa solo vlog aan kaga sameynaya magaaladan Oxford kaga sameynaya oo aad ila eegi doontaan waa magaalo tourism ama dalxiis loo yimaado taasna qofkii doonaya waa soo booqan kara basaska dusha ka baran inkastoo xilligan ay tahay xilliga qabowga basaska dusha ka baran waad arkaysaa marka haddii aad fursad u heli kartid soo booqo magaaladan caanka ee Oxford jaamacadaha soo eeg 38 college ayaa ku yaala oo runtii taariikhi waxbarashadan aad ugu weyn marka insha Allah waxaan isku dayayaa qaybta jaamacadaha kale ee caanka ka sii magaalada inaan ku soo wareego oo aan soo arko isla markaana xilligan waxa jira interviews aad u fara badan ama waraysiyo laga qaadayo ardayda imaanaysa waxaad ku arkaysaa dad badan oo ka imaanay Korea, Japan iyo China ka imaanaya iyo dadkan Ingiriiska qof walba ku socda baaskiilka qaabkan ugu socdo oo qaabkii hore
waayadii hore marka intaas ayaan kaga baxaya qaybtan hore anigoo ah Cabdinaasir Ismaaciil fadlan isku daya inaad subscribe ka dhigtaan vlogga Solo Vlog